بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. إلهي يا مهد سبحانه وتعالى waxaynu ku dhex jirnaa bishii barakaysneed oo Ramadaan. Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala bishaas wuxuu ugu naadiyay dadka muuminiinta waa rugnu min arkaanil islaam, rugnu oo kamida arkaanul islaam kamida. Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala dadkiisa muslimiinta ayaa gaar ahaan dadka muuminiinta ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu naadiyay inay soomaan. suuratul baqara ilaahay wuxuu yiri subxaanahu wa ta'aala: yaa ayyuhalladhiina aamanuu kutiba calaykumus siyaamu kamaa kutiba calal ladhiina min qablikum la'allakum tattaquuna ayyaaman macduudaat. Allah wuxuu dhahay subxaanahu wa ta'aala dadka muuminiinta oo ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyeenow, waxaa la idinku farad yeelay oo la idinku waajib yeelay soon ayaa la idinku waajib yeelay. kutiba calaykumus siyaamu, soon ayaa la idinku farad yeelay. marka hadda naadadan iimaan markii ilaahay ugu naadiyay adoomankiisa ayuu ilaahay wuxuu yiri soomaa la idinku farad yeelay. waxaa ku jirta xigmad weyn ku jirta naadada ilaahay subxaanahu wa ta'aala. ilaahay oo ku khaas yeelay dadka muuminiinta waxay ku tusaysaa faralkaas inuusan gudanaynin ilaa qof muumina mooye. waxa soomaaya waa dadka muuminiinta. markaas Allah wuxuu dhahay subxaanahu wa ta'aala dadka ilaahay rumeeyow kutiba soom ayaa la idinku farad yeelay. ilaahay kutiba calaykumus siyaam, soonku marka wuxuu ka mid yahay min asharaa'il qadiimati ilaahay, sharaa'ida hore ayuu ka mid yahay. waxyaabaha hadda markaasi ummadan kitaabkeena quraanka ilaahay kula khidaabay goonida ku ma ahan soonku, wuxuu ka mid yahay sharaa'il qadiim oo ka mid yahay. laakiin kayfiyadu waa ay kala duwan tahay. soonka kayfiyada loo soomayo ummadii hore u soomi jireen iyo midda anagu maanta aan u soomayno waa ay kala duwan tahay. laakiin soon inuu maartay ummadii adduunkan soo maray laga bilaabo من أبونا آدم إلى أمة محمد لقسو قارو إلهي سبحانه وتعالى إنا يسوم جيران وصون أي لهايين لغو فرد يلا أيا إلهي قرآن كنا أقول شاقي معايا إلهي يحوري كما كتب على الذين من قبلكم سيدي دادك إذن كهري لغو فرد يلا أيا لإذن فرد يلا تاسمارك علماء وحير هذا أهل العلم أمام مفسرين وحير هذا تصلية لغو وضاهو qalbiga dadka muuminiinta loo dejiyaa waxaan wax idinku gaar ma ahine horay baa maartay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadiisa ugu faral yeelay idinka horeysay ayaana leeyadaana ummatul muhammad la'allakum tattaquun. soonka waxa laga helayaa waa ilaahay taqwadiisa ayaa laga helayaa. wax kasta ayuu ka dhowraya. haddana ayaaman macduudaad oo ilaahay maalmo oo yar waayo ilaahay. hadda bil hadii la soomay bisha Ramadaan adaanu soonay ma yartahay waa ay yartahay yaa leeyahay. hadii loo nisbeeyo sanadku waa 12 bilood. marka hadii bil kamida hadii la soomay oo soon la isku farad yeelay hadii loo nisbeeyo 12 bilood oo kale bisha Ramadaan waa ay yartahay la leeyahay. ayaam qalaa'ila weeye. markaas uu dhahay alle ayaaman macduudaad ayuu dhahay. marka bishaanu waxyaabo badan ay shamlihaysaa oo maartay ilaahay daacaadkiisa alcaaf almudaacafa laga dhigayaa wax badan hadda maartay. laakiin hadda maxallu shaahidka hadda aan doonayno maadaama bishii Ramadaan ay sii dhamaanayso oo bishii maartay sodonkeedii la joogo waxa weeye waxyaabaha bisha ka dhashay oo bisha ka dhashay waxa kamida wax la yiraahdo sakaatul fitr ama sakaatul badan ama sakaatul Ramadaan intaba waa la dhahaa. sakaatul fitriga ayaan waliba doonaynaa si gaar inaan maartay aan u cabirno wixii rasuulkeena kaleey salaam uu ka yiri axaadiis saxiixa ahaday. حديث كما رتيا صحيحين كابن عمر يا ما رتيا
ركلا لجوريي أو هاي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل مسلم حر مارتيا ذكر وأنثى كل النبي عليه الصلاة والسلام له وهوي إلهي سبحانه وتعالى وحو فرض له رسولك عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر قف كسته أو حرأة أو لبأة أو ندق أو من المسلمين وله وهذا مركزي إلى أن قف عن مسلم هي ليس كوا جبينين هاي الإسلام ماذا يا كعكت سكذا زكاة الفطر قوالس كفر لي وإسكال زكاة الفطر وحلي هذا أحكام الخمسة إسكال هذا دتك فقداء هاي وهي أصمين أحكام الخمسة أصمين أحكام الخمسة وحلي هذا واجب إيه مارت الصنة إيه وحالي هذا كراهي إيه وحالي هذا مارت يا مباح ووح بنانا إيه مارت يا أحكام الخمسة وحوي مارت يا إما إني واجبته زكاة الفطر مرو واجبة يا زكاة الفطر وحي واجبة يسا بش الشوال مركي لو جيدو وبش الشوال هالكاس أي دلتو والله أركي ليرادو أركتدا سيكو واجبة يسا مركا أدي واجبته وقت قاس إن قفك السؤو هريايا وحي إسكاليدا شروط أو سد حي إسكاليدا هاي وحالا ربا هورتا بش رمضان بش شوال إن لو جيدو بش شوالنا وحي كسوغنا كرتا لبا مرخاتي هو شهودة أي كسوغنا كرتا بش رمضان أيضا وحي كسوغناتا هل قف هدو أركو وحاوي أو عادل هدي أو أركو أو شاغو أو مركاسي قالي أو حكميو عدكسا واكو واجبيسا إنو صوما واجب كون غنيس waxa loo yeelana maxay tahay oo maaragtay shaahid oo kaligiisa oo lagu kaaftoomo waxa weeye bisha ramadaan dhalashadeeda kaliya ayaa ka jira leeyri waxa kale waxa weeye shuhuudoodu lama kama yaraato shahaadada shuhuudu sina waxay gaartaa afaray gaartaa waxa kale waxa weeye laba kama yaraadaan xigmadu maxay tahay marka waxa loo degdegayaa bishaan bil barakaysan weeyo aad iyo aad u khayr badan sida ilaahay quraanka ku sheegay nabigeena ahadiisa oo ku sheegay ramadaan nabigu waxa uu dhahay law ta'lamu ummati ma fi ramadaan la tamannad an takuna sanatu kullaha ramadaan umadayda haday ogaalahayd bisha ramadaan waxa ku sugan oo khayr ah waxay jeclaalahaayeen bisha dhamaanteeda inay waxaan dhihi lahayd sanadka dhamaantiisa inuu ramadaan iska ahaado sanadka dhanba inuu ramadaan iska ahaado la jeclaalahay haddana waxa laga yaabaa dadkii waxa weeye bishii ramadaan u adkaysa laayiin markaas bishii wax yara ayaa ayaaman macduudaat ilaahay ku tilmaamay ayaa waxa weeye qaarna ma soomaayaan oo waxa weeye qulubtoodii yaa dhimatay qaarna way u adkaysa laayiin hadee waxa weeye waxa ka maqan qulubtay ka dhinteeno qulubtooda haday ogaalaheed nabigu soo dhahay kaleey salaam sanadka dhanba in la iska soonaada la tamanil hadaa khayrka aan fiiri lahayn هذا بالرمضان هذا واي دماتي ولا soo maray ma doonay marka hada wax badan oo barnaamij dheer ay noqonaysa hada ramadaan falaashiis la tagno hada wax kasta la tagno laakiin bisha nabiga kaleey salaam koow bisha ramadaan marka maaratay la soomayo rasuulku waxa uu dhahay suumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in ghamma alaykum fa agmilu 'iddata sha'ban 30 waxa uu dhahay rasuulku kaleey salaam aragtida ku sooma loo jeedo oo indhaha la saaro ayaa loo jeedaa haddana waxa weeye aragtida ku afuro bisha hadii waxa weeye dhamaatay ee shawaal loo jeedo hal afuro ayuu dhahay rasuulku amar weey taas suumu li ru'yati amar weey oo amrul wujuba waay marka inta ay ku sugnaahaysana waa sida hadda ma aragtay soo aroortay hal qof oo maartay hadoo shaahid oo caadila hadiiska Abdullah ibn Umar waa taw dhahay rasuulka kaleey salaam ayaan u sheegay inii ra'aytul hilaala inaan bishi arkay ayadoo markaas waliba waqti habeena la joogo oo asagu oo galabtii arkay kaligiisuna ahay markaasuu nabiga kaleey salaam fasaama
rasuulullaahi rasuulku waa soomo dhahay wa amara naasa bisiyaamihi dadkina inay soomaan u faray waxa loogu degdegaa waxay tahay bisha barakada iyo khayrka ku jira ayaa loo degdegayaa markaasaa waxa weeye waxaa lagu kaaftoomay hal shaahide laakiin shaahidku marka lagu kaaftoomayo waxaa la rabaa nabiga calayhi salaatu wasalaam qaaligii ummadda markaas asaga ahay cabdullaahi ibnu cumar nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu agtiisa ka markhaati kacay inuu bishi arkay markuu ka markhaati kacay nabiga calayhi salaatu wasalaam hadda ibnu cumar ciduu wax weydiimaysee waxau dhahay nabigu hala soomow dhahay saasaa lagu sooma marka laakiin marka haddii lacalla masalan badadaa waa aragna sheegeen dadki marka waxaa weeye qaali ina la horgeeyey oo caadila ma uusan xugmin cadaaladooda ma taskiyeynin waxa weeye dadkaas qofkii ay qalbigiisa la noqoto inay run sheegayaan waa ku soomayaa laakiin waxa weeye dad ummadda inay soonta waajib ku noqon mayso halkaas qaali markuu asagu xugmiyane waa ay waajibaysaa halkaas qaali waxaan dhihi lahay qaaligaas halkaas qof markuu xugmiyo waa ay waajibaysaa waa bisha ru'yadeedii haddii bisha ay ramadaan ay dhammaato waxaa la shardiyaa in maaragtay laba qofood oo caadila inay arkaan shaahidayna la rabaa sida hore ma ahan bisha ramadaan waa laga baxow hayaa shaahidaynkaas markay arkaan oo ay ka sugnaato ayaga laftirkooda qaali baa la horgeynayaa qaaliga markuu cadaaladooda uu sugo ayaa markaasoo waxa uu iclaaminayaa inay biri ay ciid tahay oo iclaaminayaa laakiin haddii maaragtay dad anaa arkay hebelaa arkay haddii la yidhaah laakiin wixii aynan maaragtay wax la taskiyeeyey oo qaali suga aysan ahaynin cid maaragtay inay ku soonto ama ay ku afurto waajib ay ku taa ma jirto saas waa horta xukunka maaragtay bisha oo maaragtay hadday bilaabayso iyo hadday dhammaahayso shawaal maaragtay la gaarayo hadda marka bisha waxyaabaha ay kulminayso bishaan ramadaan oo ka dhalanaya waxaa ka mid ah zakada ilaahay sakaatul fitriga xadiiska hadda aan soo qaadanayno maaragtay ibnu cumar rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu farad yeelow dhahay sakaatul fitri in suus la bixiyo xadiis kaloo jaabir uu leeyahaa waxa uu asaguna xadiiskaas uu sii fasiraayo min qaalibi quutil balad uu dhahay rasuulku beledkaas ama waddankaas la joogo waxa sida qaalibka laga cuno qaalibi quutil balad ayaa loo baahan yahay maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam intii soo aroortay oo sakaatul fitr oo ka hadlay nabiga calayhi salaatu wasalaam dacaam uu sheegay quud uu sheegay ahlul madhabka madaahibta afarta imaam abu xaniifa ayaa waxa uu sheegay qowl ka sugnaadaa wuxuu leeyahay lacagaa lagu bixi karaa fida lacagaa lagu bixi samana lagu bixi karaa laakiin cid la qaadata ma jirto waxaana jirto qaacido ah oo la og yahay oo cilmiga usuulul fiqhiga lagu yaqaana xataa saxaabada nin saxaabiya qowl hadduu la shaad noqdo oo la shaadoobo in lagu raaco ciday waajib ku tahay ma jirto hadda markay niman saxaabiba ahayn oo maaragtay ahlu khayr oo ummadii maaragtay xilligii maaragtay taabiciinta u jooga abu xaniife hadduu asagu qowl oo la shaad noqdo cid ku raacay cid lagu raaco in lagu raaco ciday waajib ku tahay ma jirto waa la iska dhaafi karaa laakiin qowlul jamhuurna ma ahan laakiin a'immada saddexda waxay maaragtay isku raaceen in dacaam lagu baxay idoo nabiga calayhi salaatu wasalaam lisaankiisa la raacayo in dacaam lagu bixinayo sidaas ayaana raajix oo la qaadanayaa dacaamkii laftirkiisa waxaa rabaa quutul qaalibka inuu ahaado hadda waddankeennan soomaaliya inkastoo gobollada waxba aysi yihiin hadda magaaladan muqdisho iyo gobolladan u dhow iyo hareerahan dacaamka laga cuno yaa ugu qaalibsan waxaa ugu qaalibsan laba quudaa ugu qaalibsan labada quub waxaa weeye galeyda oo dhulkeenna ka baxda iyo maaragtay bariiska oo asaga laftirkiisa dhulkayna qaar ka baxa qaarna dibadda laga keeno si aada dadku ay u cunaan culummada fuqahada waxay yidhaahdeen haddii waxaa weeye dhowr quud ay qaalib noqotolaab wada noqdaan qofka zakada bixinaya sakaatu fitriga ikhtiyaar uu yeelaa kow rabo bixi karaa hadda marka annaga soomaali haddaan nahay waxaan bixi karnaa labadaas midda aan doonaan bixi karnaa haddana waxay ku soo aroortay hadda ziminadan su'aasha dadka oo jahawareerka haaya waxaa ka mid ah dadkii siday zakaatul fitriga u bixiyaan ay laayihiin taas mashaakil ay noqotay wax iska sahlan ayaa dadka culays looga dhigay
waxa arrimaha sameynayane waxa laga yaabaa dad annaga oo kale intooda hoon faham saas lahayn inay dadka wax u sheegayaan oo ay macnaha ay kayl wax ugu sheegayaan waxay sheegayaan wasanay wax ku sheegayaan qaar dhaay intaas oo kiila iyo waxa la rabaa war arintaas dadka ha laga daayo naska xadiiska fiiriya iyo fuqahadu iyo waxa kutubteena ku qoran iyo xadiiska nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam nabiga kaleey waxa wax lagu cabiro waxa weeye kayl iyo wasan waay hadda kiila intaas oo tiraad kiiladu wasan ay ka timaada miisaan waay kaylna hadda nabiga kaleey suusow suus waa beeg waay suus beeg waay badarkan hadii la hayso adaad galay la timaado ama bariis la timaado see wax u bixaysa dadku shacabku see wax u baxaya hadda leedin sheegaya annagu waxaan ka turjumaynaa wixii culimadeen noo sheegay kitaabada ku yeelay faham in loo yeeshaan la rabaa dadkii waxay ku jaha wareereen intaas oo kiila la sheegay intaas kana inta wax ka yiri war waxaas umadaha laga daayo wax sahlana loo sheega shariica diintuna diin dib lama aan diinteena diin yusri wa samaaha way waa diin suhuula mar balba waxa way wax la yiraahdo shidda lama ogola waxa loo baxaayo nabigu ma sheega saacan ma dhihino war saacu waa marka maaga saas ka dasuuski lama haayo oo waxa laga yaabaa aaladii in maanta aysan joogin aaladii marka waxa way suusku waxa way 4 amdaad waay waa 4 mud waay 4 combo amba 4 shot sidii loo yaqaan way mada amba 4 madaalka lagu beega badarka lagu beego meel mudkii oo ka soo jeeda waa hadda laga joogo dhowr sano mudkii oo nabiga kaleey salaam oo maya saaci madiino nin oday oo xaaji oo dhulkaas ka soo qaaday ayaa sheekhan inta Allahu naxariisto Ali Suufi hay jiray oo hay jira maaratay saaci madiino hay jiray labadaas qofood anigu waa soo gaarnay koombadan hadda badarka lagu beegayo suuqa taala afarteeda waa kaway ku tahay suuqa waa hadda waxa shood waxa way mudki wax waa lagu beego waaya waxay ka yimideen meel fog ay ka yimaadeen dadka marka hadda adiga bariis ad baxayso midalan quutul qalbka uu yahay koombadaas aad soo qaadee ama madaalkaas ama shoodaas aad soo qaadee halkaanaad badarka dhiganaysaa markaad dhigato waa beegaysaa 4 mudaad bixinaysaa waa saac iyo moogta halka madaxaad qofkii intaas laga bixinayaa hadduu galeeyahay waa ku beegay dadkii marka jaha wareerka oo maaratay tabar loo waayo oo saacad walba lagu dhibaayo waxa kamida ay bariiska meeqa kiilan baxa oo kulay ila calaashan loorkan bariiska ku jira waa 50 kiilo kiiladuna miisaan waay ma ahan beeg kayl ma ahan kayl ma ahan waxa way shariicada kaylay ku soo aroortay dadka marka waxaan dhib lahayn ha loo sheego dadku waxa way qofku wax bahaya koombadu meel walba ay taala ina soo qaato 4 madaal qofka ha ka baxsho waxa way hadda fuqahada waxay si yiraahdeen hadda mesela koombaad weysaba koomba waa la waayay hadii koombadu meeqa waay marka 4 xafanaad waay qof kafkiisu mu'tadil u yahay hada sidii gacmaygaan oo kale qof weyn oo faraq gacmo waaweynaan ahayn qof aad u gacmo yarnaan u gacmo dhuuban ahayn kafkiisa mu'tadilka 4 xafanaad waay 4 xabsimo soo qaada inta waxa badarka meeshan ku yaal koomba duurka ka jiri kartidba say u dhib yar tahay 4 xafanaad markaas mud waay haddana 4 soo qaade gacmahaga ku beegay dadku beegba ha qorta ka gilay gacmahaga ilaahay kugu dhigay ama ka go'aya suuska hadii la waayay oo mudki la waayay adiga gacmahan kuma yaaliino gacmahaga ku beego sahal soomaan ya dadka maxaa loo dhibaa arinta horta waxa way xagga maaratay zakaatul fitrku saas waay qof kasta oo muslim ayaana laga bixinayaa ahkaamul khamsada ay leedahay mar waxa way waa iska banaanta in la baxsho waxa way bisha ramadaan markay dhalato ilaa ay ka dhamaato waa iska sii dhiibi kartaa waa ku banaanta jaa'is waay taas waxa way waxa jirta markaasi maray maaratay waajib ay noqonayso bisha shawaal hadii loo jeedo ilaa maaratay 24 saac oo soo socda in la bixiyo intii salaadan dhilay salaada intii laga 4 habeenkaas ilaa salaada laga gelay ciida intaas inaad bixiso waa waajibaysaa waajibku ilaa wuxuu sii soconayaa ilaa qorraxdu ay ka dhacdo
labaatan afar saac iska dheh labaatan afar saac waxa ka sii awow maray sunnata jirta oo la sii sunneeyo waxa la sunneeyaa waaga markuu bari intaan salaada la dukanin oo ciidul fitriga ina waqtigaas ku aadisid waa la sunneeyaa waxa loo sunneeyaa waxay tahay dadka fuqarada hadaad bisha dhexdeeda sida wixii iska cunaana dhici karta oo maalintaas dadku ciidayo farxadda iyo ay ku jiraan waxay cunaan inay waayaan laakiin waxa la leeyahay mar hadii maartay sakaatul fitr waqtigaas la siiyo farxad ay ku ciidayaan halaha saa loo sunneeyay waqtigaas inaad ka dib mariso ilaa maartay oraxdu ay ka dhacdo oo waqti dambe aad gaarsiiso waa banaan tahay laakiin karaahi waaye marna waa xaraam waxay xaraam tahay markii waxa weeye maalintaas adoo heli kara inaad dib uga dhigtay maalin kale maartay 24 saac isaas kaaga dhamaato maalinta labaadoo ciida markaasi waxa weeye shawaal oo lama yahay habeenkii aad gaarsiiso taas xaraam waaye marka maxay tahay ahkaamul khamsa leeyahay ahkaamul khamsa ku dureersaysa ahkaamul khamsa waxa waaye mubaax waa hadda aan soo sheegnay bisha haday bilaabato iska bixi kartaa waa banaan tahay haye waajib waxa waaye waxa imaanaya waajib maray waajibayso marka ay waajibayso waxa weeye waa marka hadda idin sheegayno hadii maartay shawaal loo jeedo bisha shawaal markii loo jeedo waxa weeye waajibay noqonaysaa markaas waa waajibtay haye waxa weeye maray karaahi tahay karaahida in salaada ka bacdi ilaa maartay oraxdu ay ka dhacdo inaad sabixiso karaahi waaye laakiin waa ka ansaxaysaa mar waxa weeye xaraam waaye hadaad maalintaas ka daba mariso adoo heli kara xaraam weeye marka waxa weeye shantaas waxa leeyahay shanta ahkaamul khamsa leeyahay waxay ku dureysaysaa zakaatul fitriga ilaahay waxa uu dhaqad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbi fa salla ayadaas waxa lagu fasiray oo nabigeena kaleey sallallahu alayhi ku fasiray qad aflaha man tazakka waxa weeye man tadahara bi zakaatil fitri yaa loo jeeda qofka waxa weeye zakaatul fitrigu qofka ayay dahiraysaa maxaa yeelay nabiga kaleey sallallahu waa tawray xadiis kaleentood duhratan lis-saa'imi wa du'matan lil-masaakiin oo dhahay wa duhratan lis-saa'imi oo dhahay dadka masaakiinta waxa weeye cuntay u tahay qofka saa'imkaane waxay u tahay dahiro ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigiisa wixii ka dhaco khala lahay ramadaanka dhexdiisa ay dahiraysaa xadiis kale waxa jiray nabiga kaleey sallallahu ramadaanka la koriyay mucallaqo ku yahay hawada لا يرفع إلا بزكاة الفطر ساس حديث معني صحيح لما كوري إلى زكاة الفطر ما هي لكن وحا شردية قفك مركا يكون واجبيسو وحاوية كو هرتا بيش شوال إن لو جيدو وحا شردية بيش شوال إن لو جيدو وركا يكون واجبيسو وحا شردية مركز إن مالنتاس قوت كيسة أصغي انتو عنايو إيو مارتي أهل كيسة نفقود يكون واجبتي in maartay waxa weeye inuu heli karo taas shardi waay intaas waa inuu maartay uu heli karo qofka hadana waxa la rabaa qof muslim inuu yahay marka waxa weeye hadii intaas la helo waxa weeye shuruuda la doonayo waay zakaatul fitriga waa lagu dhibtooday su'aashoodii yaa badatay dadka jaamada waa la jahawareeriyay war dadka waxba yaan la jahawareerin dariiqa nabiga kaleey u sheegay loo raac taas loo dabaqa kaliya waay ساعة هدودا سوس وما سوس كداهي ستو واكاس داويسه أفرع 4 أمداد واي بيك لكن وزن كوما سودقين زودن كوما سودقين dadka waxa jahwareeriyane waxa weeye meeqa kiilan dhiiba kiila wasan waaye rodolaa la saara meel kiila saasa lagu saara waxa umada jahwareerka ku riday waxa weeye wax wasan ku yimiday ayaa loo sheegaa wixina kaylay ku yahay sharaacadu nabiga kaylow sheegay kaleey salaam kaylkaas waa in lagu cabiraa dhibaato mara warinka diilayna badarka iska beeg koomba waa helaya suuqay taala ama suuqa badarka ka soo gadi kara markaas oo intaas oo iyo cabiro dhigi kara hadhow markaas oo suuqa dhiibaya dadka masaakiinta in laga farxiyo loo baahan yahay qofku hadoo waayo oo maaragtay maalintaas waxa uu asagu cuno naftiisa iyo ahalkiisa waxa uu ku qoodiyo wax ka dheeraad hadoo waayna ku waajibi mayso baba ku waajibaysaba maxay la shuruudi ayaa ka maqan markaas marka waxa weeye taas waxaan leenahay zakaatul fitriga qaabkaas sanad walba waxa weeye hadii la gaaro qaabkaas loogu dhaqmo ilaahay subhanahu wa ta'ala ramadaanka Allah naga aqbalo
oo maaragtay qabuul allah na siiyo zakaatul fitrigana dadka masaakiinta u baahan la siiyo ee qaabkaas loo bixiyo qad aflaha man tazakka man tadahara bi zakaatil fitri yaa lagu fasiraa وذكر اسم ربه هنا وحال ولجدا تكبير تواي تكبير لبا قيبود واي تكبير مد مرسل الى مدنا مقيد لها مد كمرسلك وحوي عيد الفطر عيد الفطر تكبير كلا قاده مرسل الى وحوي هابينك لو جيدو بش شوال لو جيدو ايا تكبيرته بلابه هداد مساجد جوجتو هداد سوق مريسا هداد ودده مريسا هداد غورغاga joogto waa takbiirse ilaa biri salaada maartay ciid laga gelayo halkaas ay ku egtahay midda muqayyad kaana ciidul adha marka ciid weynta la gaaro takbiirkaas muqayyada la yiraahdo wuxuu ku qaydan yahay salaadaha khalfigooda ilaa maartay ayaamu tashriiqa galabta ugu dambaysa la gaarayo salaadka soo la dukado ayaa bacdigeeda la takbiirsanaya waxa la yiraahdaa muqayyad wuxuu ku xiran yahay salaaduhu ku xiran yahay laakiin midka hadda ramadaan si dhamayno aan maartay aan galayno mursala leeyra aaw hadii bishi loo jeedo waxa weeye oo amba sawaaba dhamaato 30 kiyaaba go'aba waxa weeye hora laga takbiirsanaya takbiirkaas inta u soconaya waxa uu soconaya intii biri salaada laga gelayo dadka waxa la arkay masaajidka markay isugu yimaadeen markaas ay takbiir bilaabaya waxay u maleeyahayaanba dadka caamada iyo dad xogaa uu si iska in masjidka ba takbiirta in la geeyo ay tahay war masjidka la geey maayo hadaa u jeeda adiga bisha hadaa u jeeda halka takbiirta ka bilaw guriga ku takbiirso suuqyaasha adoo maray jidadka adoo maray takbiirso hadhow masjidka hadii la isugu tagan hada waa la iska takbiirsa salaadii la gelaya marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed inay saas u fahmaan shariicadeenu saasay qabtaa culaysna ma ahan culayska waxa ka dhigaya dadan wax fahamsanina dadka culayska u keenay war waxaas umada laga daayo waxa weeye kutubka ugu sokeeyo oo maartay fiqhi hoon akhrisano ayaa sidaas dhigaya laakiin asay laftigiisa fahmo raba hadaa tiraadid maartay kiila iyo 2 kiila 3 way dhahan ma qaana waxaas xaaja ribidooda qoorta ka gilaa qoorta ka gilaa suuska ma weysnid hadaa suuska weysa mudki ma weysnid mudki hadaa weysa gacmahaagan maadan ku cabiri kara adiga kitaabka sidaas soo dhigaya وكتاب أنا كتبت لا آخر سيء عمل فلينا مرك إن شاء الله تعالى وحي لتها إنتاس زكاة الفطر جاية نوجود الرأي ووقت يصير الجوجا إنتاس بحينا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.